السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين aad baa u salaamantiin channelka naga daawanaysan waa Silf Official waxaan leenahay soo dhawaada maanta waxaan reaction ku bixinaynaa fiidiyoyadii ugu yaabka badnaa adduunka dad tuugsi sameynaya ayagoon mudnayn in lacag la siiyo laakiin adigu waxaad u maleynaysaa inay yihiin dad tuugsanaya marka daawasho wacan saaxiibka Silf maxaa leedahay runtii waa arrin aad iyo aad u baahan baraarujin waxaan u soo qaadanayna waa inta in umadu ay ka feejignaato dalkeedii hooyana waa ay ka jirtaa hadda qaarkood oo marka laga eego Somaliland Ethiopia halkaas meelaha ugu duruufta badan wax laga raadin dad amudnayn in la caawiyo laakiin iska soo dhigaya dad u baahan in la caawiyo tusaale ahaan in gacan go'nayn oo gacantiisa qasanaya qof aan dibanayn maanta dhan ooyaya marka waxyaalaha noocaas in la daba galo oo qofkii khaladka ku jirana bulshada laga wacyi geliyo loona sheego u baahan baan ugu channelkan aanu maanta kaga hadli doonaa una soo qaadanay fiidiyoyada waxaanu marka hore mudnaanta siinaynaa walaalkii soo diyaariyay oo leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay insha Allah channelkiisana hoostaan soo dhigi doonaa kasaad kala socon doontaan anaguna reaction baan ka bixin doonaa ku soo dhawaada haweeneydan idin muuqata waa mid kamid ah dadka tuugsada iska dhiga inay la yihiin laxaadka markaad aragto waxaad moodaysaa inay tahay qof weyn oo da ah laakiin maalin maalmaha kamid ah waxaa dabagal ku sameeyay nin wariye ah oo ku sugnaa wadada ay ka tuugsato haweeneydan waxay wadataa weel yar oo maran markastoo wax loogu rido weelkaas waxay ku sii wareejinaysaa boorsadeedan ay wadato waxayna iska dhigaysaa qof aan waxba helin maanta oo dhan qof weyn oo waayeel ah oo weel yar wado tuugsanaya weelkiisuna uu maran yahay haddaad aragto bal maxaa samayn lahayd adigu qof kasta intuu ka naxo ayuu wax ugu ridayaa sidaas ayayna ku shaqaysataa maalin kasta waxayna heshaa saacad kasta 50 ilaa 500 oo dollar kadib way sugeen wariyaashii ilaa ay ka gaadhay habeenkii oo ah xilligii ay ka bixi lahayd shaqadeeda way dhaqaaqday wayna daba galeen wariyaashii waxayna fuushay gaarigan yar ee aad aragtaan laakiin markay ka soo degtay gaarigii way yaabeen wariyaashii waxay arkeen gabar yar oo caafimaad qabta curyaanna ma ahan caadi ayay u soconaysaa dharkay ku labisan tahay waa kuwa qaaliga waxayna ka tukaamaysanaysaa wadadii ay ka tuugsanaysay way labisan tahay wayna xaragoonaysaa wariyaashii waxay sii wadaan dabagalkoodii asxaabteedii ayay la kulantay habeenkii baashaaliya in lagu tunta lacagta ay soo shaqaysatay maanta ayay bilowday maalintii xigtay waxay ku soo noqotay shaqadeedii ayadoo iska dhigaysa qof laxaad leh oo waayeel ah waxaan maqli jiray dawca meel ay wax ku aragtay ayay macluul ugu dhimataaye maskiintan maysan ogeyn in ilaa iyo shalay dabagal lagu hayay waxaa u imaaday mid ka mid ah wariyaashii waxayna ku dhaheen maalmahan xaaladaada ayaan la soconnay umana baahnid caawimaad saaka u dambeysay waxaan ku arkaynaa adigoo caadi u socda oo caafimaad qaba intaas markii loo sheegay waxay isku dayday inay inkirto sidaas ayaana lagu fashilay haweeneydan ma arag kumana hamiyeen waa yani shirkad camal tuugsi heer caalami ah wadooyinkii ugu taajirsanaa bay soo istaagtaa maalintii habeenkii iyagii bay ka labisataa ka baaqaysataa ka doonata lacag ahaan uga doonata waa mudnaan wariyaashaas baan ugu gaabsanahay in umada qofka noocaas la hor keeno ayada xataa damaba ogaa in la daba galay in kale meesheeday marxalad ku soo laabatay hadii laakiin ogaan lahayd saxda laga masal gaareen halaga tagi lahayd Soomaa laakiin inaga dadkeenu taas oo kale ma sameeyaan macquul ma aha waxa kamid ah dadkeenu hadeer oo kale in laga fajignaado u baahan ilmayaasha la iska soo qaato oo dadku inta badan ku caansan yihiin in la gaajisinayo si uu maanta dhan iskaga ooyo inaga boodka kuwaas ay ku jira laakiin caalamkii meel kasta koobigu iska jira muuqto soo koobi galaya curyaankii beenaalaha ahaa dabcan haddaad aragto qof jiis ah oo tuugsanaya waxaa laga yaabaa intaad ka naxdo inaad siiso lacag ninkan Shiineeska ah oo ka tuugsanaya waddo busy oo ku yaasha dalka Shiinaha ayaa la fashiliyay asigoo iska dhigay qof labada lugood la fiiri muuqaalkan wuxuu saaran yahay alwaax loo sameeyay galaas weyn oo uu lacag ku aruursado ayuuna wataa sidaas ayuuna ku shaqaystaa kadib waxaa maalin maalmaha kamid ah aqoonsaday ninkan in ay baska isla soo raaceen saacado ka hor wuu yaabay wuxuu dhahay war ninkan markan baska isla saarneen wuu bataagnaaye hadda maxaa helay lugihiisii kadib wuxuu go'aansaday inuu ninkan ku fashiliyo dadka hortooda sidaad u jeedaanba dadka hortooda ayuu uga saaray surwaalkii uu ku qarinayay lugihii uu duubtay sidaas ayuuna ku fashilmay midkanna labadiisi lugood la aragna wala shufna wala labadiisi lugood dhan waa xirayso lacag u helo ahnika rugaaski waan ku xasuustay ninka ka waaski ma garanaysa bisinkiyo ninkani waa dadka ninkaas waa laakiin aqligaasi kala duga fadhiisan la ka waranayo de wax kala sameyn lahaayo laakiin de shaqa ahaan buu ka dhigtay Soomaa waxaan tuuganimati u weyneyd weeye wallahi nin luga lama lacag baa u diidi karaysa waan xasuustaa caasimad
markaan joogi jiray caasimadii baranahayd ma garanaysa waxyaalaha noocaas oo kale ah marka caasimadu aad bay u weynay dadku isma yaqaan inta badan waa kan marka qof caana baa jiray oo intuu xaafadda kale intuu yimaado ka tugsan jiray markaasaa dadkiisii maalintii dambe ogaadeenoo ilaa markii dambe la yiri dayaan hebel waxba la siino waa dee magaalo weyn qaarka qaar ma cid baa iskaga warrami karaysa tii laga ogaada ma tu kala utay ma garatay markaa tii ninka la xasuusin ninkii bas la saarnaa waa soo qabtayo ogaaday meesha dhexda ku fashiray maya ninkaas waa cajiib wey baynu ma laga yaabaa kuween hadda yar inay sameeyaan qaarkood waa dhici karta laakiin dee shaqo ahaan dadka islaamka oo kale ma samayn karaan dad gaalada ma samayn kara sooma qof islaam waxaas ma ku tuugsan kara aqal galma ku kale oo Shiinees ah oo la mid ah kii hore wuxuu iska dhigayaa inuu laayahay lugaha iyo gacmahaba lacag badan ayuuna sidaas uga aruursadaa dadka toogsiga kadib wuxuu noqonayaa qof caadi oo caafimaad qaba warbalaayo badana waa kan mid kale oo caraba waa qoys dhan oo wada socda aabahooda ayaana iska dhigaya qof jiis ah oon socon karin waxaan oo dhanna waxay u sameynayaan inay helaan lacag mid ka mid ah kaamirooyinka darbiyada ku xidhan ayaa qabatay bal fiiri meeshaas uu fariisanayo ayuu dharkiisa shaqada iskaga bedelayaa kadibna waaba ninkaas urdaya ee caafimaadka qaba waxaa kaloo la mid ah mid kale oo asagana iska dhigayay curyaan oo lagu qabtay Pakistan fiiri wariyayaasha ayaa ka qaaday ulihii uu ku boodayay waxayna ku dhaheen soco inkastoo markii hore uu iska dhigay qof aan socon karin ulaha la'aantooda markuu arkay inaan laga tegaynin oo la hayo ayuu caadi iska dhigay waaba ninkaas soconaya ee la wareysanayo laakiin dadkan ku dhiiranaya inay raadiyaan oo qofkan ka sal gaaraan waxun bay arkeen niyo dadka kani horta waa wariyaal waliba qaybta baaritaanka ay barteen waa muhiim waa dadka Soomaalidu hadda waxay u baahan tahay lahayn khaasatan dawladda federaalka ee Soomaaliya anigu waxaan kula batanin lahaa ama dawladaha Soomaaliyeed badii inaan meel carabaabin laakiin waa wax waajib ah ninka xitaa magaalada haysta ciidatan maartay magaalada positive-ka in la kala ogaado adduunku sirdoon sida loo kala wacan yahay baa loo kala fiican yahay bogaadinaya nimankan aad iyo aad baan taageeraya si umada wixii xun looga qabto looga waayo ninkan wuxuu ahaa macallin dhiga iskuul ku yaala dalka India waxbarashadan wuxuu ka gaaray darajada ugu sarreysay PhD-ga wuxuuna noqday howlgab $500 ayuuna qaadan jiray iyo mushaarkiisaba bil kasta haddana wadooyinka ayuu fariistaa si uu uga tuugsado haddaba muxuu u tuugsanayaa ninkan asagoo aqoon-yahan ah oo weliba mushaar qaata hagaag ninkan wiilkiisa waa darogeyste lacagta ayuuna ka xadaa mararka qaarna wuu bagaraaci jiray maadaama odaygu lacag la'aan noqday waxay dantii ku khasabtay inuu wadooyinka ka tuugsado kadib markii la ogaaday waxaa lagu xareeyay guryaha dadka lagu daryeelo bulshada magaaladiisana taageero ayay u fidiyeen dad badan oo u baahan in la caawiyo way jiraan laakiin sidee lagu kala garan intaas ayaan ku soo koobaynaa mowduucan su'aasha uu weydiiyay dad badan oo caawin u baahan way jiraan laakiin sidee lagu kala garan horta niyo waxaa la yiri ninkii uurka dawana Allah arka ninkii afka dawana aadamaha arka saas xaqiiq lama garan karo ilaa baaritaan la sameeyo laakiin dhacdo kastoo dhacda waxay u baahan tahay cibro qaadasho iyo in laga feejignaado iyo waxa la ka dhaca maadaama adduunka maanta hal magaalo yahay inuu tan ka dhici karo fiidiyogu waa uu sii dheeraanayaa inta mar raba inaan ka soo gabagabeeyo waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkii Ashraf sidee adigu tala ahaan maxaad qabtaa horta wallahi dee wax aad loola yaabo Soomaaliya marka la eego dhanka dawladaha islaamka oo kale waxaas laga helimayo dawlado qaar oo laga yaabo in ku jiraan maxaa la dhahayaa qaar gaala ah oo maaragtay dee waxaan ku dhiiranayo oo laakiin qofka islaamka laga yaabo inuu hadduu xanuunsan yahay caad u tuugsado oo kale masaajidka imaado laakiin qof maxaa la dhahayaa lugaha ka go'an yihiin aad arkaysid hadhowtan kugu noqonaya nin luga leh oo baska kuula soo koraay waxaas waxaa kala geli karaya ma marka dee waxyaalahan wax lala yaabo way magarata dhanka Soomaaliya inaan laga helin baa rajeynaya hadii Ilaahay yiraahdo laakiin waxa dhici karta Soomaaliya in laga helo caruurta lagu tuugsado oo kaleeto ilmahan leeyahay ilmahan cunno u baahan yahay cunno iisi ilmahan asagu male laakiin shirka bay ku yihiin magaratay marka waxaan rajeynayaa muuqaalka hesheen aad iyo aad u mahadsantiin dhamaantiin hala naga ilaawan like-ta share-ta comment-ga sa usoo yaacay waan ahay aad baa mahadsantiin thank you very much